subax wanaagsan ardayay sidaan ognahayba waa xilli roobaad cashirkeennuna maanta waxa uu ku saabsan yahay xilli roobaadka iyo waxyeellada korontada xilligan oo kale korontadu waxa ay dadka u dishaa siyaabo badan waxaa ka mid ah in loo dhowaado baalle in biyo fariisin la maro in aad taabato oo aad isku daydo inaad demiso daaradamiyaha adigoo farahaadu qoyan yihiin iyo inaad isku daydo inaad cillad bixiso korontada adigoon aqoon macallin biyo fariisin haddaan dhex maro maxaa dhacaya biyo fariisinka waxaa laga yaabaa in uu xambaarsan yahay danab ama koronto sidaa darteed waxa ay khatar ku tahay noloshaada macallin haddaa baala taabtay xilliga roobaadka muxuu iga dhibaa waxaa laga yaabaa in baallaha aad cuskatay ay ku xidhan tahay fiilo fiiqan ama ay saaran tahay waxaadna ku weyn kartaa naftaada macallin aniga waxaa isku dayaa mar kasta inaad korontada cillad bixiyo haddii naga halawdo ha qaban hana taaban haddii aad aragto fiilo ama xarig koronto oo dhulka yaal maxaa dhacaya haddii aan taabto macallin dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalan kara haddii aad la kulanto la xidhiir lambarka gaaban ee 333 ama u sheeg xarunta beeko ee kuugu dhow